halkani waa masjidka Daarul Culuum xaafadda Dhadhaab gobolka waqooyi bari ee wadanka Kenya waa masjid weyn oo culimada ahlus sunna wal jamaa ay halkan ka dhisayaan qaar kamid ah culimada ahlus sunna wal jamaa ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhameystirka masjidkan oo hadda maraya marxaladda dhexe qof kasta oo wax ku darsada masjidka waxa uu mahadin doonaa maalin uu kaga baahi badan yahay maanta hadaba qof kasta oo wax ku darsa masjidkan oo nambarada shaashada kaaga soo muuqda ku hagaaji kaalmadaada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أحبة الكرام وعن هلكن إن شاء الله تعالى ضدك محسنين ونكسن إلهي سبحانه وتعالى أنت دسي وباقينا مسجد كان ومعنا مساجد كان كعصننا بارك الله فيكم إن كسوق بقادتان cid alla cid codkeena gaaro masaajidka aan dhex taagana wad aragtaan meesha u dambeysay taagan yahay fadlan insha Allah ta'ala waxaan idin ka codsanaynaa oon maartay idinku duceynaynaa inaan masaajidka ka soo qayb qaadataan waayo wax la dhiso waxa ugu fadli badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala beedkiisa waxaan ku heleyseen Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo nabigeena kaleey salaam inoo sharax wuxuu yiri man bana baytan lillahi bana Allahu lahu baytan fil janna ninkii Ilaahay dartii masjid u dhiso Ilaahay asagana macnaha jannada guri uga dhisaa waxa kale nabiga kaleey salaam uu leeyahay ninkii maartay masjid dhiso walow meel shimbir ay fariisataba Allah ka yeelay marka waxa way waad garanaysiin hadda masjid waa meel jamaa ay ku tukanayso dad badan ay ku tukanay waxa loo jeedaa in yar oo maartay ama shimbir fariisato oo maal ninkii ku bixiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala asagana wuxuu maartay jannada ay uga dhisaa guri uga dhisaa waxaan leenahay walaalada insha Allah ta'ala ina daawan doonto masaajidka ina ka soo qayb qaadataan waa sadaqa jaariye ah waa sadaqa ku soconayso adiga adduunka joogi aad adduunka tagtaba insha Allah ta'ala inta lagu tukanayo lagu cibaadaysanayo oo ahad ku tukanayo ajarkeedu ku soconaya ka soo qayb qaata walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu jecel dadka muxsiniinta wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin rabbi subhanahu wa ta'ala uu leeyahay marka waxyaalaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonkiisa ku jeclaada waxa way wax bixintu ku jeclaada hadii Ilaahay masaajidiisa aad noqoto min dayactiro ama dhiso aad noqoto adigana caaqibadaada iyo adoonkaada ka arki doontaa waxa maartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yeeri doono barakallahu fiikum waxaan ugu baaqayaa bulshada khayrka badan ee wanaaga badan inay maartay masaajidkan asaga ay ka soo qayb qaataan ayna isku dayaan insha Allah ta'ala inay ka mid noqdaan dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala beedkiisa dhiso عمير خيرك كو عمير إنك كمين نقدام إن شاء الله تعالى إذا رجينا. وحنا هالكن أتاجنا هاي اسمها مسجد كان وين كويا لا تجمدا تداب وأن رمنا إن اسمه سا مسلمين تان وبندقنا وأن رمنا إن الدسان أو دم يستران ساد وجدان مساجد كمشة أتاجنا ودركتان تد محسنين وهنتي ضادا ودي بي إلهي سبحانه وتعالى كبحي مسجدك أي هلكا سو غارسي انت كدن بيسا waxa la doonayaa dadka muslimiinta ay muuminiinta ah ee Ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyay inay ka qayb qaataan oo ay dhameystiraan wad aragtaan inuu kor ka qalaalan yahay wad aragtaan in aysan jiingad saarayn oo qorraxda ku dhacayso waxa uu la taagay kaliya waa idinka oo maalkiina uu ku sugayaa taasoo la doonayo inaad dhameystirtaan qof kasta oo muslim ah oo hadalkeena uu soo gaaro oo codsigeena uu soo gaaro inuu ka soo jawaabo si degdeg ah oo naxariis leh asagoo oo xoolihiisa hormarsanaya uusan qalbigiisa gelinaynin inuu cid wax ugu tarahayo ee asaga aakhiradiisa bangiga aakhir uu ku shubanhayo marka masjidka dhameystirkiisa waxa kamid ah xagga gogasha oo meesha hadda ku taagana waa gudihiisi oo de gogashiisii baa dhiman waxa dhiman jiingadiisii waxa dhiman hawlo fara badan oo de masjidku u baahan yahay tiirarkii gudaha ay kamid yihiin oo u jeedaan intaaba waxaan rabnaa inay ka qayb qaataan oo ay la soo